booliska Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay laba qof oo ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen kuwaas oo la sheegay in gudaha deegaanadaasi ay ku faafinayeen si qarsoodi ah diinta Kristanka. warbixin arrintan ku saabsan Xamsada Baare ayaa nooga soo diray magaalada Hargeysa. ciidanka booliska Somaliland ayaa maanta sheegay in toddobaad ka hor ay soo qabteen laba nin oo diinta Kristanka ku faafinayay gudaha Somaliland isla markaana loo gudbiyay laamaha ammaanka ee dalka. waxaana sidaas warbaahinta u sheegay afayeenka ciidanka booliska Somaliland Faysal Xiis Cilmi waxaana uu yiri shirayada ilaa uu qabanayna wuxuu daalan yahay weeyga hore ama weeyga la soo dhaafay ciidanka boolisku waxay soo qabteen laba qofood oo amartiin diinta islaamka ka baxay oo hadana ah daaciin diinta Kristaanka fidinayay taasoo ninku yahay nin kor ka haya quraanka iyo fiqiga. labada qofood waxaan ku dacweynay murtadiin iyo daaciin inay yihiin ninku wuxuu kor ka haya quraanka kariimka iyo fiqiga. afayeenka ayaa sheegay cid kasta oo isku dayda inay diinta Kristanka ku dhex faafiso gudaha Somaliland aanay u suuragelin waxaanu shacabka Somaliland ugu baaqay in ay ka farajignaadaan arrimahaasi cidii aragtaana ay si toos ah ula soo xidhiidho ciidanka booliska Somaliland. cid kastoo istiraada diinta Kristaanka halka ku fiday ha ogsolaato in ciidanka booliska cid ka baxsanaysa aanay jirinin oo aan lagu faafin karin. labada qofood waxaanu ku dacweynay murtadiin iyo inay daaciyiin waxaanu kiiskooda u gudbinay maxkamadda iyo xeelaanta awoodda u leh dadweynaha Somaliland. waxaanu si mugla uga digaynaa kuna boorinaynaa inay ka fiijignaadaan falalka noocaas oo kale ah cid alla cidii aragtana ay booliska si degdeg ugu soo wargeliso. Xamsada Baare, RTN TV, Hargeysa.